kulan wacan daawadayaal meel walba waa joogtaan iyo si walba aad inoo daawanaysaan halkan waa telefishinka Somali News TV xaruntiisa magaalada Muqdisho waana xiliyadii aan idiin soo baahin jirnay war wixii dalkii dibadda inaga soo gaadhay warkana waxa uu diyaar ah oo idiin soo jeedin doona anigoo ah Ciidruus Maxamuud Iimaan qodobada maanta aad warkayaga ku daawan doontaan hadduu Allah awood leh u raali ka noqdo waxa ka mid noqonaya madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo wafdi ka socda baanka adduunka maanta ku qaabilay magaalada Hargeysa iyo madaxweynaha Somaliland oo maanta dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland oo ay dhawaan meel mariyeen golaha wakiilada ee Somaliland banaanbax looga soo horjeedo maamulka loo dhisayo gobolada dhexe iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal taliska AMISOM ee gobolka Hiiraan oo sheegay in ay heshiis dhex dhigeen maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada oo in dhawaanahan aanu jirin wax wada shaqeyn ah oo ka dhex jiray gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cirre oo ilaa iminka aan ka dhabayn ballanqaad uu horey u sameeyay kaasi oo ahaa marka uu muddo xileedkiisa dhamaaday 26 Juun inuu banayn doono kursiga gudoomiyenimo warbixin ku saabsan ayaad ku daawan doontaan warka telefishinka Somali News TV